maxkamadda sare ee Somaliland aadan xaaji cali oo ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta xuquuqul insaanka ee Somaliland ayaa waxa uu sheegay inay Somaliland kaga fiican tahay dalal badan oo caalamka ka mid ah ilaalinta xuquuqul aadamaha. waxaan halkaa doonayaa dul istaago xuquuqdooda la ilaaliyaa waxay tan u tahay qaranka oo dhan waxaana calaamad u tahay haddaad aragto meel xuquuqul insaanka la ixtiraamayo ama la ilaalinayo waxay calaamad u tahay ummad jirta intaynu xuquuqda ilaalino ayay qarannimadeenu la jiraysaa marka xuquuqu way fara badan yihiin oo dhinacyo kala duwan bay yihiin waxaana taa tusaale u ah dastuurkeena Somaliland waxa jira chapter dhan oo uu kaga hadlay xuquuqaha oo la yiraahdo xuquuqaha asaasiga ah marka xuquuqahaasi waa xorriyadka ka mid ah ama xorriyatul qowlka ahaado ama xorriyadka isu imaatinka iyo shirarka ururayn la samaysto xorriyadka asaasiga ah waxa kale oo ka hadlaya xorriyadka aan ahayn kuwa madaniga iyo siyaasiga ee ah dhaqanka dhaqaalaha iyo bulshada oo ah in tacliin la helo in biyo la helo in meel la degan la helo in guri loo haydo la helo xuquuqahaasi intaba dastuurkeenu uu ka hadlaya waxaanay ku tusaysaa waliba waxa halkaa aan tilmaamaya adduunyada wadamada waaweyn ee caalamka ah ee nidaamkeena kale leh badankooda xuquuqahaasi dastuurka kuma jiraan ama waa xeer ama waa biil kale laakiin inaga dastuurka la geliyay wadamadii dhawaan dastuurka sameeyay Kenya iyo qaar badan ay ka mid yihiin bay nala mid ah laakiin inaga chapter ka mid ah dastuurka weyn waayo dadkani asalkoodii waxay ka yimaadeen dhibaatooyin bay ka yimaadeen dawladda dictator caburin bay ka yimaadeen waxa markaa loo dagaalamay ama dawladnimada loo dhistay in xorriyad la helo inay dadku dareemaan oo ay helaan maxay hayday inay xor yihiin waxa kale oo iyadana laga maarmaan ah waxa jira dawlado dhaqaale haysta oo dadkoodu nolol fiican haystaan oo inaga dakhli fiican oo batrool iyo hawlo badan leeyihiin laakiin waa maxay hadday maanta waxay jaman lahaayeen nolosha aynu ku noolay sababtoo ah wixii ugu qaalisanaa bay leeyihiin oo ah ama xorriyadii hadalka ama tii siyaasadda ama tii maxay hayday inay wax dhaliilaan ama tii noolaansha waa rich waa qani wax kastoo dhaqaale way haystaan way nool iyo way dhargeen laakiin iyaguna dhinaca kale waxaanay haysan maxay hayday xorriyad badan aynu haysano marka halkaa waxaynu ka garanaynaa inaynu xorriyad wadamo badan oo caalamka ka fiican nahay iyo inaan maxay hayday wada haysanin waxyaalaha aynu u baahnaa laakiin inaynu ka fiican nahay iyadana waa mid dawlado badan baana jira waxa kale oo iyadana aan tilmaamayaa dhanka kale gudoomiyaha hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ku dhaliilay kooxaha u dooda xuquuqul insaanka inay u doodaan oo kaliya xuquuqda siyaasiga balse ay ilaaween xuquuqdii bulshada dadka xuquuqul insaanka difaaca ama qaar dawli ha noqdaan ama qaar gaar ah ha noqdaan waxay xoog ka saaraan xuquuqdaha civil and political rights xuquuqaha siyaasiga ama madaniga oo waxaad arkaysaa iyagoo aad loo difaacayo saxaafadda xorriyatul qowlka siyaasadda in laga qayb galo doorashooyin xor inay dhacaan laakiin waxa kale oo arkaysaa xuquuqihii dhaqan dhaqaale iyo bulsho in la dayacay marka xuquuqaha waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo shaqo abuurka iyo meelo la galo iyo tusaale waddankeena kale maanta qofna ma kari karo dhul uu hoydo jago yar uu kari karo ma awoodi karo meel uu ku noolaado ma heli karayo looma doodo waqti dheeraad lama siiyo waxa xoog loo siiyaa siyaasadda saxaafadda xorriyatul qowlka oo loo baahan yahay laakiin dhinaca kale waa la dayacay sababtu waa maxay ana idin sheegaya xuquuqul insaankan maanta mowdanka caalamiga jira waxa liidka xilligiisu bilaamay wuxuu ahaa kontomaadkii sodomaadkii afartanaadkii kontomaadkii lixdamaadkii markii uu socday waxa loo yaqaano maxay hayday xorriyadkii loo markii adoomaysiga lala dagaalamayay Mareykanka oo kale ama wadamo badan lala dagaalamayay NGO-yadii ama dadkii kacay Human Rights Watch iyo Amnesty International ay ka mid yihiin xuquuqihii markaa jiray baa ahaa xuquuqo siyaasadeed iyo madani dabeedna iyaga saameeyay halkii un baa laga wadaa saameyn bay inagana inagu yeeshay dawlado fara badan oo bariga 60kii iyo 40kii 50kii xuquuqaha taagna waxay ahaayeen in adoonsiga lala dagaalamo in loo sinaado meelo dhan baa jiray oo dadka madoobay aan gali jirin dabeedna tii un baa dabada la haystaa tii un baa socota NGO-yadaas caalamka saameeyay iyaga dhaqaale badan siiya dabadeedna saameyn bay ku yeesheen dadkeena inagana xuquuqda difaaca laakiin hadda u fiirsato magaalada Hargeysa xaafadda State House-ka la yiraahdo
ama IDPs ka kale ama meelaha kale dadka danyarti ku nool yihiin xuquuq dhibaatooyinka ka jira in attention la siiyaa way yartay bal imika xaafadda haysta hooska markaad eegto malaayiin baa ku shaqala malaayiin baa ku tacliin la intaasoo caruur baa ku curyaanta waana milyan qof intay leegto wadiga arkay meelo badan oo IDPs ka meelaha danyartu galaan baa ka mid ah looma doodo attention badan lama siiyo waxa ka mid ah imika disability-ga waa ka la hadlayay ururada forumkaas way jiraan ururo badan oo u dooda laakiin inta la siiyo saxaafadda ama la siiyo siyaasadda ama la siiyo xuquuqaha kale siyaasadda iyo madaniga lama siiyo xuquuqaha dhaqaale iyo bulsho. Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.